كل عن وناكسنا غيرتها ودن لحرت halkan oo barta YouTube kulan mar banaga socotaan waxa ku soo qaadan doona xaaladii ugu dambeeyay dagaalada Ethiopia laga soo sheegay Soomaalida iyo Oromada isku dhamaaday arrinta soo falqayn doona waxa kala soo qaadan doona inqilaabka dawladaha Ethiopia ee la tariyo oo cirka galay dagaalkii ugu weynaa oo laga baqay inuu halkaas ka qarxo waa soo qaadan doona inqilaabka Soomaalida iyo Ethiopia oo markaas asagana cirka galay in warkeena ay ku falqayn doona waxa kala falqayn doona magaalada Laascaanood iyo xaaladii ugu dambeeyay meesha hadda ay wax marayaan dhamaystirka ACC qaatomo shirarkii oo ergo hor leh ku soo biirayso ayadana falqayn doona Said Cabdullaahi Dani oo asaguna weerar ku ah magaalada Buuhoodle oo soo qaadan doona xaaladii ugu dambeeyay khilaafka dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Maxamed Sulaax Madoobe oo cirka galay kadib markii Cabdirashiid Janan la sheegay in loo magacaabo doono taliyaha hay'adda NISA ee gobolka Gado arrintaasna falqayn doona khilaafka dawladaha Kenya iyo warkeena dambe ay ku maqal doonta barnaamij shirgareed meel fog gaarsiin barnaamijka ula soo saaxiibka Fargodo in wax ka weydiiyo Fargodo marka barnaamijku soo dhaw marka labaadna waxaan rabnaa inaan ku hormarno dagaal ayaa u dhaxeeya Oromada iyo Soomaaliya dawladda deegaanka Soomaaliya dhowr meel oo kala duwan ayaa dagaal ka dhacay gaar ahaan hadda magaalada Mooyaale duleedkeeda waxaa lagu dilay wiil Soomaaliyeed waxaana dilay Oromada 100 geel oo neefna way ka dhaceen ninkaasna wuxuu ahaa nin askari ah meydkiisa ayaa baraha bulshada la soo dhigay xaalku faraha ayuu ka baxay dawladda deegaanka Soomaalida dhimashadeedu ilaa 30 meeyay gaaraysaa Oromadana ilaa 40 iyo 50 ay sii gaarayaan waxa marka halkaasi kaaga baxay Mustafa Cagjar muxuu la aamusan yahay qorshihiisa muxuu yahay wallahi horta meeshan kaliya Mooyaale dusheeda maaha ilaa Biki ilaa iyo maxaan ku dhahaa Hudayd ilaa iyo deegaano kale Oromadu saf balaaran waxay u soo qaadeen dagaal ciidankii Liyo booliska ee hadda ka hor iyo kuwii maleeshiyaadkii la dagaalami jirayna Soomaaliya loo qaaday marka waxaad leedahay horta qorshuhu waa qorsho isdoon dooranaya in ciidamadana meesha laga saaro ee Oromada maleeshiyaadkooda ama Liyo boolis ha noqdo ama jabhadooda ha noqoto ama wax kasta ha noqotay inay weerar dawladda deegaanka Soomaalida ku soo qaadaan waa wax aad mood in la sila doon dooranayo oo la isku aadiyay marka kulay 16 degmana maal dhawatay shaaciyeen oo maabka khariirada waxay ku soo darsadeen hadii bay ku soo gol yahay khariirada Oromada gobolkeeda deegaankooda ayay ku soo darsadeen 16 degmi ku soo darsadeen Oromadu sidii ay u qabsatay ba xukunka wali waxay deyn la yihiin maxaan ku dhaafar gelinta ay ku hayaan iyo waliba dhul balaarsiga ay ku doonayaan deegaanka Soomaalida inay ku qaataan ayay wali horta wadaan aad waxana ma aha wax ay ka tanaazulayaan waa wax ay ugu tala galeen ba inay waxaan maartay ay dhulka Soomaalida xog ku qabsadaan dhulka Soomaalida xog ku qaataan wax ugu tala galeen way marka aniga waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaankaas horta inay isdifaacaan horta xaq ay u leeyihiin hana isdifaacin baan leeyahay sababtoo ah haday isdifaaci waayaan oo qorshahan ay ma garanaysa Oromadooda isdifaaci weydo dhulkooda waxa weeyaan Oromo khatar ugu jira dhulkooda Oromo adeer khatar ugu jira waana waxyaabaha ma garanaysa inta badan ba hadda laga duulaayay Oromadu ay ka duuleysay doonaysaba gabi ahaan dhul balaarsiga inay ku qaataan hadda waxa laga soo sheegayaa meeshii la oran jiray Biki iyo deegaano kale ku teedsan inay saf balaaran iyaga iyo ciidankoodii maleeshiyaadkoodii iyo Liyo booliska inay ciidankii saf balaaran u soo galeen oo dawladooda deegaanka ee Oromiya ayaa dabada ka wadaba dawladda deegaanka Soomaalidana kama hadlahay arrintaas oo wax hadal ah oo uu sameeynayo oo ka hadlay ka soo saaray midna ma jirto horta marka khatarahaas jira dawladda deegaanka Soomaalida hadii bay ku soo ogol yahay maanta way shirayeen maanta waxa laga shirahayay ismaamul magaalooyin iyo degmooyin cusub oo lagu soo daraya dawladda deegaanka Soomaaliya ay ka shirahayeen kuwan Oromada qaadanaysaba marka kama shirahayaan maxaan ku war Oromada soo duulaysa ee dhibaatada nagu haysata maxaan ka sameeynaa dawladda deegaanka kama shirahayaan mashruuc baa la afjaray iyo dhaqaale miisaaniyad wala qaatay shidaalka hadii la guranayo iyo hadii Oromo soo warato midna laga hadli maayo laakiin ismaamul magaalo iyo magaalo hebel baan iyo dhagax dhignay iyo magaalo hebel baan biyo dhaaman sameyn waa inuu hadaas u khiyaariga noocaas u bahdo dawladda deegaanku iyo ku jiraan marka waa dad la haysta weeye waa dad la qabsaday waa dal laga lahayn weeye waa dal lagu soo duuray weeye cid u maqan ilaahay ahayna ma jirto wadna la socotaa oo waxyaabaha sameynaya sida loo sameynayo xoogowgi ka dhaqdhaqaaqi jiray ee jabhadda ahaa baa la soo afjaray oo muddo 8 sano marka yaa la soo afjaray marka intii ay jabhadaas u dhaqdhaqaaqaysay Oromadu isma dhaqaajin jirin waxaas dhaqaajin jirin maxaan ku dhahay cid walba xuduud nala leh ismayna dhaqaajin jirin laakiin Etoobiyaanku markay ogaadeen qoladaas in lagu tukado janaasadoodii ma garanaysaa lagu tukaday markaas waxay bilaabeen Ethiopia inay dhulkii iyo dadkii iyo wax walba inay ku soo figaagto marka anigu waxaan leeyahay war dhul lama hele dadka reemo yaale ha ku dagaalameen oo dhulkooda ama ha ka cishadeen Ethiopiaanka
وأرمضة سقي ساكع عشرين ودولك أيجا عليها محاكم هادي فعلين وولي بقولة الريم مو يا اسمه نكذا اللغة الصومالية إن كستو عليس فربد الأسرية حتى مقالة الحديد وحالي حبدا قبل عيونه قارية تايرة كبجرينا دعاني ربنا أسور قلويس أو صومالي إلا ده أرمضة مقالة الحديد حبد قبل عيونه وبكبل عيونه وح كلام ومس السودان إنه وح نعان وميدونية هنا وح نعان وميدونية مو يلا أنا وأنا أركي لبس سوق بكلية سوقنا وسوق بالكية أرمضة سوقنا وسوق الصومالي marka waxa weeyaan aqligu inuu shaqeeyo oo Soomaalidu ay iska celiyaan qiimo yar wali way iska celin karaan oo ay hubka qaataan baan anu ugu baaqaya aad farqada ma santahay dhanka Ethiopia iyo Eritrea khilaafkoodii waxa la leeyahay isbedel jiro dawladda Eritrea iyo dawladaha Ethiopia dagaal ay u diyaar garoobeen haddana waxa soo baxaya baqi nabadeed oo caalamka ka soo yeeray waxay kula tahay wallahi gooniyo waa run baqi nabadeed baa soo baxaya laakiin waxa weeye baqiyada nabadu waa dhanka kale u shaqeynayaan baqiyada nabadu بالعكس هو شقينا أنا واسكول فتوي والدجال ما وي والدجال كوالله دهدين وي بقول قرشة أيام ماشي هي أيام لقلي هو ياله مركا أنا جو حليها هاي هدي به كوسم وقول يا هاي قرشهن أي وضو محن كنا هاي إثيوبيا قرشة أي دولة إريتريا إنها كقبسنا يسوع معها وأنا قرشة كل يسكت دفاع يسوي من لقى عمس كرما هدي إريتريا كو مقالة أما ديجان كتكرار وحكوسة بندقان عيدا كأم فرحة بدنا بكوسة بندقان oo halkaas ku sameeyay dowladtus military wadagan ka Tigreega hada balogo shabada Tigreeguna waxay soo bandhigeen maxaan ku dhahay iyagana dowladtus military bay soo dhigeen marka maanta tababar u soo xiran ciidamada u tirabadna siyaasad foorka qayb gala kuwaas way horeeyeen oo kuwan ka dambeeyay dowladtus ku sameeyay deegaanka Tigreega marka waxa weeyaan xaaladdu way cakiran tahay Ethiopia waa la ogaaday qorshaheeda la ogaaday qoraal ay soo saartay waxay hoosta kaga soo qortay ujeedadeedu waa inaan dekada casab gaadho oo anagu lahaan jiray ugu fiirsaad عسمرنا مدة كحنا قدوا مدرس. دكتور عصب. أنا لهانش روائنا سخسر هو قرنا إلى يريد سيد. مركب حوالي إثيوبيا وحده كما لا بينيس. دجال توسي وديار. دجال توسي وديار جرودي. إنه دجال كقادنا وربطه. ويقولي بإرتري كأدس. وده هو أنا لصوب يرمي. إرتري يكون حي ربان. إنه جبي هم إثيوبيا وقبل الكأس هيست إنه كلا درته. أي ربان. مركب واحد بدن بانك لقوم مجعبه جوني والسعودة. وأنا أقول دون دي كل واحد كودن بيسو. فرقدو waxaan waa mahadsantahay dhankaasi waa ka gudbaynaa waxaan aadaynaa dhanka iyo meesha la yiraahdo gobolka Gado magaalada Doolow waxa dawladda federaalka Soomaaliya markala saarto cunaqabateen kadib markii ciidamo ka soo baxay magaalada Kismaayo ay ku soo wajahnayeen meesha la yiraahdo Doolow oo dawladdu ay ka warhashay kadibna ay tiraaday elboorka Doolow waa xirnaba waxay kula tahay waxa shalay idraad la furay isla maantana la xirmay tahay horta halkaasi waxa ka taagan حالات غلفسن بكتاعي. هالكاسي ما ممكن جبلان بدونه إنه إذا ما كنت صداد جرايو. إذا ما جبلانه. دولة دون حيدون يسبب الحوادث تسال كدقته إن هالكهدولة لغود الصو جبلانه. كديمنا لا أقنصره. هالك ما ممكن دي يقرشه هذي وحجيدين اللي جه رجليو. أي يدونه قرشاسي و صعدا أو قرشاسي وسفي عم بو صعدا مركا دولته هو جمال المدحب الحسن الشيخ محمد كل الدلال دار بكل جرتها ما ممكن جب لنا يجونا بنكو ذيك الدلال هيان مركا الصومالي وحد مودئني وذا الدلالش الصومالي وذا الدلالش ونسكت دلالسه أيها اسكت دلالي سيد الكلود من الهبل اسكت دلالي فرقة ما صندوق يحصل فرق دونا برامج الجرام الفكرسي